dhulka maantay aan shaqada ka bilownay wuxuu ka kooban yahay 3 kiiloomitir 5 kiiloomitir dhacaysa oo u dhiganta 15 kiiloomitir oo isku weer ah dhulkan oo dawlad goboleedka Jubbaland uu ugu talagalay in laga sameeyo dib u dejin dhammaystiran oo noqon karta xal waara oo loo sameeyo dadkaas tabarta daran ee waqti dheer hoy la'aantu haysay qaybta guriyeynta ee mashruuca fayskiisa koowaad blogga koowaad ayaan maanta waxaan u nimid in la waafajiyo naqshada master plan-ka dhulka loo sameeyay sifo loo diyaariyo dhulka boosas ahaan sidii uu kala googo'i lahaa wadooyinkii mari lahaa dhulka dhexdiisa iyo meelihii laga dhisi lahaa xarumaha danta guud ama social amenities-ki sida iskuuladii saldhigyadii booliiska suuqyadii xarumihii waxbarashada kuwii caafimaadka iyo wixii la mid ah waxaanu mahadcelinaynaa runtii hay'adda UNHCR oo iyo partnerkeeda Afford oo barnaamijkan suurtageliyay oo naga caawiyay guryahan 88 guryaha ee loo dhisay dadkaas aadka u nugul waa wax weyn aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanu rajaynaynaa guryahan inay guryo kale ay xigi doonaan dadaalo badan baa socda hay'ado badan mashruuc weyn buu ahaa dhul resolution ku weeye koow waxa ka in dhul la helo dhul hadaan la helin xal waara lama heli karo deegaanku waa koow ka bacdi in level loo abuuro dhulkan wuxuu isugu jiraa dhulka deegaanka iyo dhulka beeraha looga abuuray ay ka abuuran lahayn waa istaraatiijiyada loogu talagalay in abaaraha iyo barakaca iyo dhibaatooyinka lagula dagaalamo